horta dadka la habsooco ama waa laga tira badan yahay la yiraahdo ama la yaso waxa ay Soomaalidu qof walba markii laga hadlayo hal qabiil kaliya ma aha madibaan ma aha jiriir ma aha dadka cadcad ma aha ama dad kale ha noqdaan waa qabiilo tira badan laakiin hal qabiil baa xooga saaraya si qabiilkaasi ay u fahmaan meeshii wax ka qaldan yihiin iyo meeshii ay wax iska keeni la yihiin qabiilkaasi waa qabiilka marka laga hadlayo gobolada waqooyi loo yaqaan gabooye marka Puntland laga hadlayna madibaan loo yaqaan marka koonfur laga hadlayna Maxamed Gurgaarta loo yaqaan qabiilkaasi horta magac marka fiirisid madibaan waa madibe isla waa hal qof sida aan u maleynay laakiin magacyada loo kala duway isla magacyadaasina marka aad si fiican u fiirisid marka laga soo gudbo Maxamed Gurgaarta oo magac caadi ah labada ka magac oo kale waxa ku muuqanayso qofkaasi inuu ahaa qof aad u wanaagsan madibaan wuxuu ka yimid madibaan marka la fasirana magacaasi waa qof aan dhib badnayn dadkaasi qof aan dhib badnayn buu ahaa hadii uu dhib badnaa lahaa dadka intaha farta ka gali lahaa maanta waxa laga yaabaa inaas kale inuu lahaa dadkuna ay ka baqi lahaayeen laakiin adduunka aan ku noolahay qofka doqonka ah عليدا كدادنيسا هدي أت باور أود سيس مقت سيس وحد دعيس قفكاسي إنه كوجو تنتو حتى أو كوجو كاديو سببتنا وحى إتهاي بالآدم كأود لمصي وقفكو دون هالنقطة هويني إذا أتقبتيد هدا أود سيس sidee doonte ka yeelaysa am xiriirka aad la leedahay wiilka aad xiriirka la leedahay ama ku qaba hadii aad awood tira badan uusan u qalmin siisine sidoo doonu ka yeelaya awoodda waa meesha la isku dilo qofka bilaadanka ah wax walba hayda ka dhaxayaan awood hasiinin waa inaad ku dadaali kartaa inaad xuduud sameeysi kartid xuduud aad sameeysatid boqolkiiba 80 noloshaada caafimaad bay ku noolaanaysaa cid ku dhibaateynaysa ma leh laakiin waa wanaagsanahay qof wanaagsananahay hal igu dultunta hadaa tiraade naftaada dilaysa ilmaha dhali doontin waxay ku noolaa doonaan bahdilay dhibaato meesha ay hadda ka timid in dadkii madibaan ka soo farcamay oo dhan ay dhibaato la nool yihiin cunsurinimo ah iyo safagoyn ah laakiin odagaasi hadii waagaas gacan qaadi lahaa aakhiradiisa oo xumaa lahayd adduunkiisana wanaagsanaa lahayd laakiin si wanaagsan uu sameeyay Allah og laakiin aakhiradiisa sidee tahay laakiin mar walba waxa aan niyada ku haysaa qofka bilaadanka ah qofku doona ha noqoto awood ha siinin su'aal waxa jirtay aad wariyaha weydiisay Soomaaliya oo dhan aad weydiinaysay aad dhahaysay Soomaalida ha iga soo jawaabto su'aasha markaan bixinayo ma doonayo qalad in ay fahanto astiraadid qabka u hadlay qofkan muxuu yahay laakiin waxaan rabaa inaan wax ku fahansiyo ama ka dhacsiyo waxa tiri Soomaaliya gobol walba waan degnaa cid naga tira badan waa cid liskuma hayo marka tira badan markaan liskuma hayo ee waxa lisku hayaa gobolkee degtaan gobolkee ka soo baxdaan gobolkee ka soo yaacdaan markii laga hadlayo Soomaaliya dadka ugu weyn qabiilada ugu weyn waxa la yiraahdaa waa isaaq hawiye daarood ku Puntland buu degaa isaaq Soomaaliland buu degaa hawiyuna koonfur buu degaa koonfur waa gobol badan marka Puntland waa gobol badan Soomaaliland waa gobol badan laakiin qofku markuu yiraahdo Soomaaliland ka yimid isla markaa maskaxdaada ku soo dhacaysa isaaq maata qofku markuu yiraahdo Puntland ka yimid isla markaa maskaxdaada ku soo dhacaysa daarood maata qofku markuu yiraahdo koonfur baan ka yimid isla markaa waxa laga yaabaa in hawiye maskaxdaada ku soo dhaco laakiin su'aalo badan ay isweydiinayso isleedahay koonfur xagee ka timid oo kale markuu gobol ku sheego waxa laga yaabaa inaad hawiyaha gudihiisa sii gashid laakiin Muqdisho dadka dhan baa ka wadimid marka madibaan marka laga hadlayo ama gobolka laga hadlayo waxa uu la barbarsiman yahay ama la ag taagan yahay booska hawiye ama daarood waa qabiil dhan oo weyn la raba inuu marka gobol ka soo baxo hadii aad marka dadka ku dhaxnooshahay oo gobolada Puntland degtid gobolada waqooyi degtid gobolada koonfureed degtid micnaheedu waxay tahay tira badnadaadi waxay sababaysaa marka inaad dad kala xoojinaysid oo boqolkii qof oo meel joogta hadii aad 20 kamid tahay 80 ka saa muuqanaysa 20 qof ma muuqanaysa boqolkiiba 20 way yar tahay leeyahay taas sababaysa marka in la yiraahdo dadka laga tira badan yahay laakiin hadii Soomaaliland weynaanta badan hadii aad magaalo samaysataan oo aad magaaladaas la yiraahdo gabooya ka soo baxaya ama madibaan baa ka soo baxaya taas markii la yiraahdo waxa dhacaysa 20 ka sano soo socoto in magaaladaasi wiilal iyo gabdhaba ay guur u soo doontaan mararka qaar la maqlay inay hiblaayo tiraadaba ani magaalo hiblan u socda saa u soo guursado laakiin hadii aad dadka ku dhaxnooshahay waxa dhacaysa marka inaad noqotid maliibaanaha lagu liibaano waa dad baa xoojinaysa war dadka tirada badan ee meesha degan yaa weeyale waxa leeyahay oo dadka meesha degan waa hawiye dadka meesha degan waa isaaq waa yaraanaysa marka dadka meesha degan waa daarood laakiin hadii dhanka kale inta la fiiriyo la yiraahdo war halka ayaa ka soo toosiya Maxamed Gurgaate madibaan ama gabooya ka imaanaya markii la yiraahdo taa waxay cadeynaysaa marka in idinku gobol gooni aad yeelateen ama magaalo weyn aad yeelateen taas marka waxay sababaysaa magaciinu inuu kor u qaadmo dad idiga magac dheer oo idiga aqoon badan oo idiga lacag badan ma jirto laakiin waxa jirta in dadka ku dhaxnooshiin taas marka waxay sababaysaa in macnaha ay noqotoba in madaxa dadka looga istaago madax istaagana waxa uu bixi kartaa kiina qaaradaha kala duwan ee adduunka joogo ee lacagta leh inuu ku fikiri karaa sidoo dadkiisa u horumari lahaa oo uga soo saari lahaa hal meel oo uga dhax bixi lahaa dadkan xaasidiinta ah ee aanan iimaanka lahayn ee aan dareenka lahayn ee mar walba dhanka xun idinku jeedinaya
sidaad uga fogaan lahaydeen haddii ay diin leeyihiin ama iimaan leeyihiin ama ilaahay ay ka baqayaan idimaysan takooreen ama dhibaato idinkumaysa sameeyeen laakiin idinka waa inaad isku xidhnaasho samaysaan oo aad tirahdaan anagu maanta wixii laga dambeeyo dadkan inta ku hoos noolaan lahayn waa inaan meel ka soo muuqanaa gabagabo qof liita dunida ma jiro ee qofku meeshuu isdhiga weeye waxaad arkaysaa qofku dhahayo anigu qabiilkaasaan ka dhashay qabiilkaa ma guursan karo guurka wuxuu uu ku xiran yahay awoodda rabbi iyo qoraar rabbi iyo lacagtaada lacag haddaa haysatid qabiilkaa doonta ka dhalo waxaad arkaysaa dadka ku dhahaya magaalo heblan ka imid qabiilkaasaan ka dhashay oo aan qof aan diin lahayn ama ilaahay rumaysnayn guursanaya wuxuun u guursaday dadkii dhalana ay raalli uga noqonayaan waxa ay tahay waa lacagta marka intaad ku mashquul lahayd waa libahdila waa leeyleeda waa inaad dib intuu iskugu laabatid adiga kor isku soo qaadaa oo aad mararka qaar dhihi karta adiga kuma guursado waa in adiga ka timaada dhihi karta adiga kuma guursado markii aad tiraahdo adiga kuma guursado kaasaan ku dhahay okay amaal dhaxa iskugu nimaano laakiin haddaad dhanka lacag ka liidan tahay haddii aad qof ku hoos nooshahay haddii adigu macnaha dee dhibaatadaba aad dusha saarinayso leedahay maxaa lii bahdilaa mar walba qofku ku bahdilaya waayo waxa ay ka imaanaysaa bahdilka maskaxduna waxa istaagtaa shaqadeeda qofku 35 markuu gaaro dadkan ku dhibaateynaya ee ku caynaya ama ku liidaya ama aanan kula dhaqmaynin waa dad sanadooyin hore maskaxdooda istaagtay waxayna isticmaalayaan waxa ay tahay wax boqolaal sano hore la isticmaali jiray qofku maskaxdiisa inay wax boqolaal sano hore la isticmaali jiray ee isticmaasho waxa sababayso maskax istaagtay way qofku markuu 35 kor u dhaafo wuxuu ku soo celcelinayaa wixii 25 jirkiisii uu bilaabay uu ka fikiri jiray uu sameey jiray bay 35 ka bilaabanaysa ilaa uu ka gaboobayo ama dhibanayo fikradii 10 sano ugu dambeeyay 25 ilaa 35 buu ku dhaqmaya marka qof fikradiisa 25 ilaa 35 ku soo koray qabiilkan waa la liidaa qabiilkan waa la bahdila qabiilkan waa la dhimeeyaa kaliya maskaxdiisa ku soo dhacaysa 35 markuu gaaro way adkaanaysaa maskaxdiisa inaad bedeshid oo qof maskaxda madoobaatay marka haddii aad ka mid tahay qabiilka kaliya kama hadlaya gabooye ama ma dhibaan qabiilada la heeb sooco ama la takooro wayna fikiri kartaa waa dhihi kartaa adduunkan inta ku nooshahay maxaa u baahantahay kow aakhirada inaad wanaajisatid labo inaad hanti samaysatid hantidaas oo aad si farxad leh ugu noolaatid saddex inaad qofka ku dhibaateynaya ka fogaa kartid maaha inaad ku ordo qofka ku dhibaateynayo maanta inaad wariyo intuu tagtid tiraahdo maxaa lii dhibaateynayaa xaq uma lihid waxa xaq u leedahay inaad ilmahaagana tarbiyey kartid naftaadana tarbiyey kartid wixii adiga ku qancinayana aad markaas xooga saari kartid si aad u muuqataan meel ka soo muuqda laakiin haddaad dadka ka dhex muuqanaysaan kaliya waxaad ahaanaysaan kuwa cagta la dul saaro oo awoodooda loo isticmaalo sidaan hore kuugu sheegay qofka dunida ugu doqonsan ee dherer ka daadanaya haddii aad awoodda u dhiibtid siduu doono kuula dhaqmaya xilli wuxuu gaarayaa oo kugu kaadiyo qofna awood ha u dhiibin inta aad nooshahay aad neefsanaysid mar walba waxaa ku dadaashaa waxa ku qancinaya kaa farxinaya aakhiradaadana wanaajinaya inaad xoogga saartid halkaa inay la fahantaa u malaynaya